السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا محمد أفرح يا قفة وصلح السماء. كومي الله ما بنسوي تكلية أما بنرش سبنا عابستو وأكيد كرس بدل الآليات. نمبر 1 قفة وحصلح الأمم إنسان وقوديو ونفتي ساسي وحكمة. وحق نفتي وحق وحق الله سبحانه وتعالى كليه وقرنا وأنا قفة القرآن اللي يستوعب بعديسو. تصارعنا هذا ننتهي إن صلاة الصبح جماعة الكتب ووحى أمهم سنة النفط على الصباح إذا النفط على كوكوديسو وحى إلهي سبحانه وتعالى والنفط كله ليه إن أي هالشو وحى هو نفس ما يقول. نمبر 2 جيت قفل بالآدم كأو أنت بدل ما 6 ساعة 6 ساعة قفل إكسرسايز محايا جد وحويه وهويه qofka oo dhan uu ku nasanayo ama qofka oo dhan hayeeyo marka jirkaaga uu exercise sameeyo inaad exercise badan samayso u baahan xataa hadda inta sariirta ka kacda aad u shaaq samayso ama aad soo lugayso oo aad markaa salaada jukata aad ku noqonin waa wax aad iyo aad u wanaagsan waayo oo brainkaaga ama maskaxdaada ku gaaro dhiig inuu gaaro oo jirkaaga kala farfamo wax wanaagsan. Number 3 in aad maskaxdaada quudiso oo wax la yidhaahdo positive mindset oo wax wanaagsan aad ku shubto oo aad u sheegto maanta inay tahay maalin ilaahay u siiyey oo aad wax wanaagsan qaban karto oo wax wanaagsan aad bar karto wax wanaagsan. Number 4 in aad risaaqad xalaal ah oo hurdo ku noqon aad raadsato maadaama risaaqada subaxii la qaybiyo waa very muhiim. Arrintaas afarta ah oo ay diinteenu noo sheegtay oo salaadaha laba kaga dhigay joogteen laga rabo qofku inuu routine noloshiisa ku noolaado inuu qofku soolkiisa ilaahay subxaana watacaala ku xiro maxaa yeelay waxaa leedahay qofka waxa stresska iyo walwalka ka reeba waa inuu qur'aan ka dhagaysto aqrana xasuusta waa. That's why dadka successful people ay dhahaan 4 AM club 5 AM club why 5 AM club wuxuu qofku u soo kacayaa inuu sameeyo meditation iyo waxyaabo lamid wax meditation ka fiican oo ka wanaagsan waa qofka inuu salaad subax jamaaca ku tukado ilaahay isku xiro hadduu early salaada ka hor kici karana uu sameeyo inuu qofku jirkiisa exercise sameeyo inuu qofku maskaxdiisa geliyo inuu maanta wax wanaagsan uu qabsado oo uu u sheego uusan iska dhegaysanin naftiisa qaybteeda ku rusheedaanka onraya ee uu naftiisa u sheego inuu wax wanaagsan qabsado. Number 4 inuu qofku u koro inuu risaaqad xalaal ah qabsado ilaahu quryaba ha soo rogay intuu nabigu sallallahu alayhi wasallam gacanta saqaysaa waxay ka qayb badan tahay gacanta hooseysa intuu qofku inta barqadii soo kaco shaxaad tagi lahaa inuu inta subaxii kaco yaa risaaq yaa fitaax oo shaqada wax ka wanaagsan. haddaba afartaas diintuna waa noo sheegtay dadka successful people oo nolosha maanta ku noolaan waxaad ku arkaysaa noloshooda inay taabasho ku leedahay dhammaantood aan taabad gelino oo aan ka faa'iidaysano. aadana bisalaam meel kastoo adduunka joogtaan. Salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.